bulshadu hayaaniyo waa hawla badanto igsiniman lahayniyo hurdaaye u darante السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبضي داود يا بيدي سلامية. ما أنتوا مالين هذا في مبادن حاجة يوها ويان سلياني جارهم بلرنو. هذا بيدي سلامية. سكين مبادن بيدي سلامية. سجوبني كنت بيدي سلامية. جوبني يا. والصبح هره. يعني قاعد حبات كافيه دع كاس صبحي ودو بدا يا تو دورميل dad waxa weeyaan xabad kafeeya dhac ka sii ilaahay bid sitahay waxa weeyaan maanta waxa weeyaan mowduuc yar baan rabaa inaan ka dhawaajiyo maadaama uu nahay afayeenka dadka mowduucani wuxuu ku socdaa qof kasta oo Soomaaliya gaar ahaan dadka ku nool waxa weeyaan qurbaha ayaan rabaa inaan tala siiyo oday adeerkay laga hayo khayr Allah siiye naartu meel la harsado ma leh qurbuhuna waa sidaas oo kale naartu meel la harsado ma leh nin kalena waxa laga hayo badda meesha laga daraabo waa dhanaan meel macaan ma leh qurbuha meel kastood ka tagto waxa weeyaan qurbuhu waa naar yaala badan oo ku soo tala gashay baa laga yaabaa si kale inay ku dhaafaan sorry waxaan codsanayaa meel iska qaylo badan baan joogaa iska baqaaxi baa iska joogaa marka waxa weeyaan markaynu waddankeeni joognay han baynu lahayn hadaad doonto guul ku jir amba caliishe laakiin han baad lahayn inaad ka bixi doonto inaad sandaqad dhisan doonto inaad ka bixi doonto inaad daar dhisan doonto inaad ka bixi doonto inaad bangala dhisan doonto laakiin maanta qurbaha markaynu soo galnay meel baynu iska dhiibaynaa meesha hadda waxa weeyaan amba laynaga ogolaado amba laynaga diido bes kii wax laga siiyaana beste intuu doonayay buu helay laga yaabaa intuu dhaqaajiya inay iska yarta waa hadduu ugu batay ayuuta yar galo kii markaa la diidaana inuu fadhiisan waayo safarkiisii wato oo marba meel وعرّو مردنا عن تك عنكي سووح النظر مركا سدوس سهل لا شرع يحيبا اسبدلي مركا أرجو هالمل أمبان ولا ما أنت قربها إنه تشوفه الله لي عدي إنه تشوف تعمل شيء وحويان مركا لا هاي الله لي عد كود ما أنت هو إذا كود تشوف تعمل بها كود تشوف وهم باكادما هو يدي أبتهاد باكان مغان waddankaaga hoygaagu amba noloshaadu waxa weeyaan waddankaaga ma joogto ummadaha kale maanta inala midka ah meelahaan ku noolnahay way ka tabcadaan way noqdaan baahidii markaa waddanka ku haysay bay daboolaan amba iyagoo shaqaynaya waxa weeyaan dad wakiishaan baahidii dadka ka haysay bay daboolaan intaana dadka qaar baa sameeya Soomaalida wuu malaynayaa in de waxa weeyaan in kooban baa inta inoo samaysa oo samaysata marka kuwa weyn ku dayamo oo baahida haday waxa weeyaan dhulahan ku haysay haday waxa weeyaan guri la'aan ku hayay haday waxa weeyaan baahi kale ehelka haysay waa inaad isku dayda xataa dad lacag hayn waa inaad hankaaga jiliso waa inay ku qorshaysantay وين قرشها ولاد كل جرتا أجيد وتلك الأيام لداولها بين الناس ساسي وريجس وإن هذا سكوت ضيدا أو سكوت ضيدا سن ماشى تن هذا بدل عرشوا يدا يسبدلس معلم بميل بفردا معلم بميل بفردا معلم بميل بتشوتا حقيقة أوكي جراسي يفين معلم بميل بتشوت يعرف maalinba meel bad ay noloshu joogto ilaahay bay tiisatahay waxaan wala socdaa dhalinyarada qiimaha badan ee Soomaaliyeed ee adduunyada ku baahsan
qofka bini'aadamka wuxuu ka duula waa hanka si kastay noloshu u adag tahay mar bay hagaagaysa hadduu caafimaad jiro marka hadday maskax taama oo wanaagsani jirto way hagaagaysa wayna hagaagaysa waayo risiqaaga iyo noloshaada iyo waxaad kasbanayso o dhan waa la qoray maalintii ruuxda laguga afufayay baa la qoray 40 yooman nuduqa markaad hayd ayaa waxa weeyaan waxaad kasbanayso o dhan la qoray markaa dadaal baa lagaa rabaa ha isdhiibin noloshu way waaye badanta yurub bay waaye badanta ninba meel bay saartay ninbaa diyaarada ka shaqaynaya ninbaa meel saaran ninbaa highway saaran midbaa suuliye masaxaya midbaa meel kala wada midba dad qurbu waa doqonoo qurbo nacasow maxaad rag ma garata maxaad rag kala sareeyeysanta maxaad rag hooseeyana korgeysa rag baa ku gebiyey markaa qurbuhu waa waaya badan yihi waa hawla badan yihi waa dhib badan yihi wax walba waad arkaysa intaad adduunyada ku noosha waxaan u sheegayaa dhalinyarada qiimaha badan reer soomaaliyeed meel walbaad joogtaan nolosha meel kastood ka tagto isku day inaad ku noolaan karto meel kastood ku noolaan karto inaad u sheegtaa noloshaada inay ku noolaan karto xaqiiqata intaasaad ku faa'iidaysaa intaasaad ku noolaanaysa hadda laakiin noloshaadu geedi u noqoto ka waran maalintaad yurub soo gashay ilaa maalinkaa maanta aad geedi noqoto ka waran rag badan oo maskax badan baan la sheekaystaa ilaahay khayra siiyey oo qiimo iyo sharaf badan leh waxba ma hayaan yurub waxba kuma hayaan wax sharci la idhaha kuma hayaan haddana meelay fadhiyaan way shaqeeyaan hadafaa u ah qaar baa waxay ku tashadeen hadhow toole markay shaqeeyaan ay waddankii wax kaga yar qabsadaan inay iskaga tadaan meesha dha go home goostaan iyagoo intii u jira markay intii gaadhay go home iyagoo isla sharciga u soo dhaco markaasay wax badan ay ku tamanin yihiin ay bartii kasii qabsadaan qaarna wayba iskaga tagaan noloshu marka way mushkilad badan tahay adduunyadaad arkaysaana dee ma dhammaato oo imika guryahan aad arkaysaan dadkii lahaa way ka tegeenba dad meelaha aynu ku nool nahay guri baad arkaysaa lagu 100 200 sano dhisay wax isbedelaya adduunyada tan qofka bini'aadamku unbaa iska bedelaya marun waad bukoonaysaa waa xanuunsanaysaa laangaraad noqonaysaa gaari baa ku jiiraya dadka oo dhan bal u fiirso waxbaa kugu dhacaya baraktar balaayo waxbaa dee bal u fiirso nin lagu dhahayo waxa ninkani meeshan bay isagaa haystaan arka isagoo kaanyaro lagu riixayo la gaari gacan waxaa lagula socdaa marka nolosha tan waxaad ka faa'iidaysan kartaa markaad caafimaadka haysato ayaa si sharaftaadu ay ku jirto uga faa'iidaysan karta si ay karaamadaadu ku jirto aad uga faa'iidaysan karta laakiin nolosha tan intaad xanuunsanaysa kama faa'iidaysanaysid inta ku soo booqanaysaa way adagtay haddaad maanta qurbaa ku xanuunsato ma balaayo kugu dhacdo war inta ku imanaysaa waad halka qofka ku imaad dad dhahaysaa yaa waad u xamdi naqaysa 150 jeer baad qalbiga ka dhahaysaa alxamdulilaahi rabbilcaalamiin 150 jeer baad ugu ducaynaysaa maa sida waddankii qofku markuu xanuusto lagu soo yaacay buuqa ilaa dhinacaa la istaagaya maa saad moodee maa walba haddaan mar lagu imaado mar labaasta lagu imaado way iska adagtay xaqiiqatan markaa waxaan ugala socdaa dhalinyarooy maanta gacanteena maanta nolosheena inankaa gacanta ku haysanaa saxaraynu soo marnay dhib baynu soo marnay rafaad baynu soo marnay waxyaalo badan baynu soo marnay oonu soo dhaafnay oo ka soo badbaadnay intii badaha ku dhimatay allah u naxariisto intii saxaraha ku dhimatay allah u naxariisto nololo adag baynu soo marnay xaqiiqatan laakiin waa ka soo maydha wixii dee ku soo maray ka maydhan way dhammaantooda noqonay tuush buu nin walba ku maydhanaya cado qaar baa dabaashaba ilaahay u nimceeyey markaa nimco walba nusqaan bay leedahay si aad ogeyn baa lagaaga jaraya si aad filayn baa lagaaga jaraya waa inu dhammaan sadaqada la baxnaa waa inu wax badan aynu isweydiinaa waa inu nafteena hagnaa waa inu gobonimadeena iyo sharafteena ku dhimanaa waa inaynu waxa weeyaan qofka laandheeri waa qofka qalbiga ka nool waa inu qalbiga ka noolaanaa inahaas baan kusoo gabagabeynaya waa anigoo bila wadigala soo hadlaya waxa weeyaan waddanka talyaaniga gaar ahaan gobolka Sicilia magaalada Palermo aadna waa idin salaamaya inta magacayga iyo muuqayga waa taqaan waxay leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi walbarakaatu allah idin sharfo allah idin qiimeeyo guul iyo gobonimo ayaa idin rajaynayaa waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala sanadkii cusub ee islaamkana waan ku jirnaa
sanadkaas sanadkiisa bashbash iyo barwaaqo allah inagu gaarsiiyo kaas sanadkaa gaalada un baynu dabadeena ee ka islaam xataa war uma hayno marka insha allah ilaahay xaqa ha inagu sugo allana hayna sharfo dhammaanteen ihdina siraada almustaqiim ilaahay subxaana wa tacaala ha inagu hanuuniyo inta dhibaataysan alla dhibaatada ka dulqaado inta xanuunsan allah ha caafiyo ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa in waxa weeyaan qof kasta oo wax intizayaba ilaahay subxaana wa tacaala inuu u fudaydiyo kii aan han lahayn in ilaahay han geliyo asalaamu calaykum adduunyadu hayaaniyo waa hawla badanto igsiniman lahayniyo hurdaaye igu darantee madaxa horseedee u hayaamay dayaxiyo awood